Jungle. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan asxaabta ku xiran qaxootiga dhaab channel iyo kuwa ku cusub waan idin salaamay salaan kadib maanta insha Allah mowduucan ku saabsan yahay saddex qodob ayaan rabnaa inaan ka hadlo saddexdaas qodob oo ku saabsan qodob koowaad buufiska xeryaha qaxootiga dhaab waxyaabihii ugu dambeeyay qodobka labaad dadka oo baahanayaalka oo la diiwaangelinay oo taararka cusub la siinaayo qodobka saddexaad dhalashada duudan oo la bilaabi doono kuwa xaafadaha dhashay iyo saddex xar meesha laga bilaabi doono ayaa mowduucan ama muuqaalkan aad kaga bogan doontaa fadlan waxaan iga codsanaynaa inaad muuqaalka dhammaystiratiin haddii aad ka cusub tahay channelka fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe saartid like noo saartid noo share gelisid haddii horaan noo joogtani waxaan kaa codsanaynaa inaad waxaa la jira like noo saartid like badan ayaa rabnaa muuqaalkan insha Allah waana rumaysatiin aan ku bilaabo qodobka koowaad dad badan oo baahanayaal ah ayaa insha Allah la bilaabi doonaa birito oo dhagaxley oo taar la siinayaa dad badan oo baahanayaal ah dadka oo haystaan boonada cadeed ayaa loo shaqeynaya sida ula socotiin isbuucu dambeeyay ala soo bilaabay ilaa hadda socotaa section A ayaa la marayaa sida waxaa loo marayaa section A markay section A dhamaato section B ayaa la bilaabi doonaa section B markay dhamaato section C markay dhamaato D ilaa iyo section u dambeeya ayaa la dhameyn doonaa insha Allah sida UNHCR sheegtay waxay dhahay dadka boonada cad haystaan dhammaan waa la wada simi doonaa taar UNHCR waa la siin doonaa sectionada nin walba section leaderka sectionkaada ama blood leaderkaada ama gudoomiyaha sida u taqaantiin ayaa loo soo dhiyay warqadaha oo ku qoran magacyada dhammaan ku qoran waa loo soo dhiyay marka magacaada meesha ka fiirso haddii magacaada ku waqti magacaada ayaad maxalli jiri lagu shaqeyn doonaa waxaana la bixinayaa kaarashin cusub ayaa la bixinayaa kaartaasoo hadda laakiin aan lahayn wax manifest ah aan lahayn wax raashin loo qaadan doono doorka u dambeyso doorka u soo socdo doorka u soo horeyso raashin looma qaadan doono bombajkula ma lahan laakiin waa sida UN ay sheegtay ama xogta aan soo helnay waxay sheegaysaa in doorka xiga markii raashin aad qaadato kadib in dadkan systemka la gelinayo hadda oo faraha laga qaadayo farahii aalinta ma ahan waa fara computer ah waa lagu soo baaray inaad rabaani leedahay inaad horaan kaartaada ka xirmaday waxyaabo badan la soo baaray marka la soo baaro soo xaqiijiya kadib ayay bilaabi doonaa UNHCR haddana qorshe kale la imaan doonaan inay manifest waxyaabaha kale xuquuqdooda kale ka maqan ayaa lagu dhameystiri doonaa sidoo kale dad kaarta xirnaa jiraan dad kaarta xirata naftirkooda isla kaarta la siinay kaartooda looma furayo marka insha Allah shaqada si fiican si toos ay u socotaa UNHCR shaqo fiican ay wada sidoo kale meesha UNHCR waxa ka maqneen hay'ado kale oo samafalayaal ah ka maqneen sida hay'adda handicap oo curyaaminta hay'adda caruurta oo TDH oo caruurtu qaabilsan sidoo kale waxaa jirto hay'adda caafimaadka MSF oo ay ka dadka xanuunsan oo dadka bukaanada sida hooyooyinka xaamilada xanuunsan ilmaha yar nafaqa darada dhammaan xaaladooda caafimaad la tacaalayso si ay u siiso warqad oo referral ah ay isbitaalka u booqdaan si adeegooda isbitaalka loo soo u helaan caafimaad u helaan dad badan oo soo barakacay ayaa ku jiro oo soo rafaadsan ilmo yar nafaqa dara hayso oo gaajo macluul ah kuwaas ayaa marka baskid bujiiqo ama nafaqada daawada loo qorayaa si ay u caafimaad u helaan sidoo kale hooyooyin xanuunsan ayaa jira oo dhiig yari hayso aytan uur leh ama barbararsan oo ka warhaynin meesha isbitaal ku yaalo ayagana waxaa loo siinaya warqad si ay u aadaan isbitaalka ama hilboostaha si xaaladooda caafimaad iyo cunuga caloosh ku jiro badqabkoodii dhammaan dadaalkaas ee loo sameeyo marka shaqada si toos ay u socotaa dhagaxley ayaa hadda si fiican ugu socotaa ifiixa dheer weli lama bilaaban sababta tahay shaqaalahooda weli lama shaqaalaynin laakiin dhagaxley markii insha Allah oo qayb dhexe markay marayaan ayaa shaqaalahooda dhagaxay dheer isku bar ayaa la bilaabi doonaa marka shaqaale iyo waxaas ayaa loo hagaajinayaa marka sidaas u socda insha Allah muuqaal walbo oo ku saabsan saddexda xaro dhagaxley iyo xagdheer iyo Kakuma iyo qaxootiga caalamka dhammaan sida Uganda Ethiopia iyo meelo badan sida South Africa qaxootiyada caalamka qaxootiga ku nool Canada qaxootiga ku nool UK dhammaan warbixinada inta tiridootiin midaas oo la socda qodobka labaad aan ku dari doono waxa kamid ah dhalashada gududan ilmaha ayaa la bilaabi doonaa berito
oo talaado ah isbuuc ayay socon doontaa waxayna isbuucaas ka socon doontaa xeryaha qaxootiga ifo ayaa laga bilaabi doonaa berito oo talaado ah way socon doontaa ilaa 7 bir ayay socon doontaa marka insha Allah lala socdo ilaa isbuucan ka dhamaan doona ayuu socon doonaa dadkii ilmaha xaafad dhashay toortada u dambeysay dad badan ayaa la duwaan geliyay intaasoo dad laga tagay maadaama laga tagay haddana dib ayaa loo bilaabi doonaa ifa marka laga dhameeyo ifa ka dhamaatay kadib hay'ad kadib dhagaxley marka shaqada si toos ah u socotaa si habsami leh ayaa loo bilaabay dhalashada guud ilmaha dadkii xaafad dhashay sida uu socotiin hooyooyin badan ayaa ku dhib qabo oo xaafada ku dhalaayo oo dhalashada guud aan la siinin in badan way horiyona siyaar ilmaha marka xaafad dhashaan isla isbuuc gudooda la siin jiray dadaal dam wixii dhan waa la adkeeyay waxaan loo adkeeyay wax kale ma ahan hooyooyinka oo xaamilada inay isbitaal ku dhalaan si ay caafimaad daryeel caafimaad u helaan dantoodii caafimaadka waa laga fikirayaa marka xabada oo ilaahay u qadaray inay xaafad dhasho waa iyada nasiibkeeda laakiin dadaal dam waa la adkeeyay laakiin balse haddana dib ayaa loo bilaabayaa cunug walba dhasho wuxuu xaq u leeyahay inuu helo dhalasho inuu helo marka dhalashadan oo ilmaha yaryar la siinayo xaafada dhashane waa dhalashada weyneed ayaa lagu sugadaa marka dadka ka warhaynin hala diyaar garoobo dadka raifada waxaan u baaqayaa inay diyaarsadaan taar ureyda qaybta page-ka ilmaha lagu talaalay qaybta detailka cunugku qoran 2 page waay 2 page taar talaalka Ethiopia sidoo kale waxaa laga rabaa taar talaalkii oo 2 page hadda aan sheegay oo taar ureyda dhexdeeda ama qaar taar talaal duwan u yahay sidoo kale manifesta oo hooyadiisa ama waalidka oo koobin laga rabaa labadaas inuu la aado UNHCR oo ifa weyn waa dadka ifa oo ku nool ifa markii ay ka dhamaatay arrintaas hawshaas laga dhameeyo kadib waxaa la bilaabi doonaa xaq dheer ay tahay si diyaar garowaan dhagaxle ay tahay naftirkooda si diyaar garowaan ilmaha xaafad dhashay si loo shaqeeyo si wax u helaan ayaan li sheegnaa insha Allah sidaas ula socda arrimaha way isdul saaran yihiin sidoo kale qodobka saddexaad aan ka hadlay waxaa waaye wararkii u dambeeyay buufisra xeryaha qaxootiga dhaab waxyaabihii u dambeeyay soo torray maadaama bishanaad shaqada xooligeeda la bilaabayo horaan aan ii sheegnay hadda waxaa baryahan loo yeeray dad GF ayaa loo yeerayaa waa bristirimin waxaa waaye dad hadda qaangaariyaal noqday oo da'dooda weynaaday ayaa marka tristooda oo laga dhigayaa waa updating lagu sameynayaa tristooda duwan ayaa laga dhigayaa tristooda maadaama tor waalid ku jiray hadda duwan ayaa laga dhigayaa fail ayaa loo sameeyaa duwan qofku intuu qaangaar noqdo fail ayaa loo sameeyaa sida ula socotiin fail duwan laakiin dad waxaa jira da'dooda jireen 15 sano 16 sano oo muddo badan sugaayeen hadda 18 sano 19 sano jiraan oo xataa baaluq oo xad gaalada oo aalin haystaan dadka tristooda duwan ayaa laga dhigayaa bristrim ilmo waxaa jira dadaal dambe dhashay oo ilaa had taar lagu darin ama had UNHCR lagu dar laakiin meeshan lagu darin marka waxaas ayaa lagu sameeyaa bristreaming wax lahayn bristreaming ayaa la jira wax lahayn bristreaming taas waa lagu sameeyaa dadkaas waa loo sameeyaa loo hagaajinayaa marka sidaas ayaa dadka loo yeerayaa sidoo kale Canada shaqadeeda si fiican ay u socotaa kiis waxaa jira Canada oo caafimaad iyo medical marayaan caafimaad iyo medical sida u taqaantiin oo marayaan kiis cusub ilaa hadda oo ma arkin oo sida face lama arkin marka sidaas ula socda shaqada si xoog leh ayaa loo bilaabi doonaa isbuucyadan horteena ah sidaan rajeynayno UNHCR ay noo sheegtay in kiisas la badin doono bastaha la soo badin doono bishii laxaad Ilaahay gaarsiiyo marka Ilaahay khayr ha dhigo kiisas waa la badin doonaa sida UNHCR sheegtay waa ilinta ayaa laga fayday doonaa marka dadka si waayay GFA INS fly caafimaad dhammaan oo Mareykan waa la dardargelin doonaa sida UNHCR ay noo sheegtay iyo IOM way boobsiin doonaan haddii wax kale ay dhicin ama emergency kale u dheesan dhicin waxay dhaheen waa la boobsiin doonaa sidoo kale waxaad joogaan wadanka Canada ay kana shaqadooda ay wadaan sidoo kale waxaad joogaan safaarado badan ayaa joogaan oo Europe sida Norway Sweden Holland iyo UK iyo Sweden waxay ku sugan yihiin Nairobi ay joogaan ilaa hadda wali dhalaam ay soo gaarin ay kana qorshe waxay sheegayaan qaxooti badan inay qaadan doonaan sida minority-da sidoo kale dadka disabled-ka oo curyaamiinta iyo dadka medical-ka caseska medical inay u baahan yihiin marka insha Allah wax khayr ah ka dhigo dad ummadda Soomaaliyeed oo qaxootiga ku nool muddo badan ku noolaayeen oo hadda ilaa hadda wadan saddexaad rajeynaya Ilaahay kana wax khayr ah u dhigo wixii shar Ilaahay dhinaca marsiyo sidoo kale waxaan idinku baaqayaa in sheegaya fadlan haddii aad ku cusub tahay qaxootiga dhaab channel markaad u horeysatay had muuqaalka gabadhaba ayuu marayaa inaad subscribe noo saartid like noo saar noo sheegay waana maasan tahay sidoo kale haddii horaan aad joogteen like noo saara muuqaalada badanaa like tu ka yar yahay share tu ka yar yahay muuqaalada hala sheegareeyo hala faafiyo
dad badan ayaa u baahan xogtaan dad badan ayaa ka qarsoon arrintan adiga waa ka faa'iidaystay idinkana ka faa'iidaysta walaaladiina ka faa'iidaystaan qaxootiga dhadhaab channel waxay bulshada mar walba ugu shaqaynaysaa si hagar la'aan adiga subscribe iyo like-taada agtaada wax qiimo ah kuma fadhido laakiin agtaada dhib iyo wax dhib ma lahan laakiin anaga agteena qiimo badan ayay ku fadhidaa like-ta iyo subscribe-ta iyo share-ka agteena wax weyn ay ku fadhidaa marka waana ku baasatahay insha Allah isku duceyno dambiyeena dambi waalidiina la dhaafo insha Allah muraadkiina